jaaliyada Soomaaliyeed ee degan West Friesland dalka Holland ayaa kulan ballaaran ay ku yeesheen magaalada Horan waxay uga hadleen xoojinta midnimadooda iyo kor u qaadista waxqabadka jaaliyadooda iyadoo madaxda jaaliyadaasina ay shacbiga kulan ka soo qayb galay uga warbixiyeen waxa uu qabsoomay waxa ay rabaan hadda kadib inay qabtaan kulankan ahaa mid ay goobjoog ka wada ahaayeen qaybaha kala duwan ee shacbiga Soomaaliyeed ee halkaasi degan ayaa sidoo kale waxa kala soo qayb galay injineer Axmed Maxamuud Xamdulle oo kamid ahaan jiray golaha wasiirada dawladda Carte lagu soo dhisay Soomaaliyeed wuxuuna dhankiisa ku baraarujiyay jaaliyada shirtay inay sii wadaan kulamada noocan oo kala ah ee xoojinaya midnimadooda jaaliyadan ayaa leh xafiis ay ku caawiyaan Soomaalida ku cusub dalkan ee u baahan ka garabsiinta waxay dalkan uga baahan yihiin sida buuxinta warqadaha loo soo diro iyo kala hadalka dawladda iyo hay'adaha danta ay ka leeyihiin iyadoo dhinaca kalena jaaliyadan ay leeyihiin wax u qaabilsan agaasinka duugta qofkii ka dhintay jaaliyada iyadoo loo mariyo sifo sharci ah dhanka kale carruurta Soomaaliyeed ee halkan degan ayaa kulanka ka soo qayb galay waxa loogu sameeyay goob ay ku ciyaaraan ama ku madadaashaan reer Horan Soomaaliyeed deegaamadan dhowdhow aan ka warkahayo kulay meel maalintaas inta la isu yidhi intii dadkii deganaa deriska ah ay qiimeeyeen ma aan maqal waxaan ku darsanayaa shiikha waanadiisii badsada kulamada sida tan oo kale ah waa isku baranaysaa dadkii wanaagsan inagama dhammaanin insha Allah haddii ilaahay raalli ka noqdo maalinta isniinta ah subaxa ilaahay maxaa la sheegay galabtii iyo maalinta jimcada subaxii ilaahay galabtii waxaa kaloo jiri doona sigana in xafiis uu leeyahay in shacabka ilaahay nololka oo qofkii maxaa la sheegay problem qaba in halkaa uu yimaado si maxaa la sheegay loo xaliyo wixii laga qaban karo loo qabto qofkii mana problem la sheegay sida ay diido problem ka qaba qofkii mana sheegay yurish problem ka qaba iyo xitaa maxaa la sheegay shacabka ayaga dhexdooda نكي بروبلم كذا حباله وماشي مدربه ألفا فرسكين إذا جالس حاول يقف هدوء جريو وطن كان هدوء وكتير على ما حبالها دبعت بدن بلقل ما سيادة هذه جريد واحد جرتي إن المدة الصومالية كنا ويست فريسلاند على ما هسعى فضيله دمانتي نوار فرحسنا كسوق الجيش كنييدا وحلينا اسكو دمانتي من نبينا ماشي كسي ودتها وحيالها بدن او ururka qabteen la aqrin culeysada amskarmaadeen jiray la xalisan ila dhaxliis xalisan maxay wadanka sanadsanayo marayna iyo dhamaata badan marka tii wadanka kale aan ku dayano wax ka doonana la imaano qaasada midaasna waxa tirtiri kara haweenka umanayna ana ku hadlaya magaca dhalinyarada si ay soo dhaweynayna gudigiina waay jaalidiina waay agaabada waa fariyihiin dhalinyarada waxaa leenahay odayaasha la shaqeeyaano gacan furan ugu soo dhaweynaa marka waa mahadsantihiin ciid wanaagsan Cabdiweli Ibrahim Garyare Universal TV Horan Holland